واتهاي أن علي سياسي على الجوري أدان تسكن بعدنا هوشة كده يو ديبويل يوم دار كبا بروفيسور علي خليفة قراري أحمد إسماعيل سمتر مدينك يقدم بس اسمه لم بيكسكناين واحد شديد يعني دودك اللي دوان ومقالوين كده لكوا قبنين لبضا بروفيسور أرموك سد وارتين بقول كي بقول برا حسنا أحبب اسك بدي دنا وأيوه تدكي كتليني قلبي لحدنكي أيو علي قرات سامعيني يضو كوصل كي صدحي صدم كها فديو مركي ليدي عن راعنو صوماليا أيو علي قرات سامع عود البهانتا هيري وأمول بالعدد بحياي لح بلود إسراع عدي بنوغو ديغا ورمها لغو بوغ هاد علي خليفة يدي لهاد لي إله war aynu Somaliland aynu wada leenahay samaysano markuu sida yiraahdo waxa la soo boodaya idin ma iyo xasuuq wana la xasuuqay war xasuuqa lagu ma helo deeq qarannimo haduu ku aniga leema xasuuqna deeqa takadaba oo waxaad samaysataa Somaliland tii dadka la xasuuqay haduu ku yiraahdo la xaq buu leeyahay isna waxa uu ku oran karaa dawladeedii daarad Madrid marka adeer waxa tagay ما هو حينو إنه مستقبل كنا واحد آمني عن نقضه وحيد تجي معه مستقبل كنا عن وقت شنو ومب على خليف ليه على خليف حكر ماله إمك إيدين بما مالين تقرأ كلام يجوا ينسمع تيوريا هذا الكودن أرك وفرع أصل كنا محون نقضه لحظة كي نضح برنامج الصومالي أصلاً كورما يسوت يحيى تجيتشو بركا فرع بو نقونيا ايدين مي اصلكينا waxaa noqonaya 26 ka jiro ee loo dagaalamay dagaalkuna minis buu ahaa ind moohayn dhamad moohayn hadda maxaa looga dhigayaa waxa laga baqayaysa oo saasoo loo dhintayo oo la dhintay xabalaha ayba la soo faqaya war waxaasi wax dad loogu sheekay ma ahay qarankan ma wada dhisana oo ma wada yeelana حاجات كأنتينا تطبيق كنتن حبنات إساق وكوي شو قلها شري الله واتنا عيدت كل دقة إساق ورد شري الله تنحبنات كوي شان كتاب كقرية هالكوكي أن وحوض يلنا دواتها دستور كهلا فرو ماها قانون علي الله فرو علي خليفة إن دول بهنت الله فرو ما وإن إنجور السودان هينو إجنايو وحي إنج قلنا إنه كون أشري ندستور كنا iyo goorta ugu haboonay aynu furayno inagu aan ka sano leesnad loo saar laakiin Ali Khaliif baa heshiis ku galay khaatuba heshiis lagu la galay in dastuurka la furo taanu khaatuba ka hor baan qabay in dastuurka la furo khaatubana mi waanan qabaa haddadan in la furo marka inaga ale dastuurku inama laha dastuurkii ma wanaajisanaa oo mid ina wada qaada oo aynu iska wada dhex aragno oo aynu si cadaalad ugu qaybsano ma sameysana haddii burco maalintii aad xanaaqtanayd lagu sii daayo xolba de ka dhigin burco in dadka kale ay representationkii isaaq ku lahaa ay ku lahaayeen waxaa iman kara dad fara badan oo aan aaminsanin goorisuutaag dad fara badan oo laga yaabo inay 90skii xataa rumaysnaayeen laakiin kolkay arkeen sida ay tahay dawladnimadan Somaliland dad fara badan baa imika aan hadii heli karayaan in gorgortan dambe ay Soomaaliya la galaano muxuu federaalka iyo gooni isu taagu dan ahaan marka aanad ka hadlayn hadda caadifiyada isaaq ee qalbiga jacaylkiina nacaybka marka aanad ka hadlayn xamar dooni mayno marka taa ka hadlay ee aqli ka xisaabtanayso anigu hadii aan arkayo wax u dhaama gooni istaaga noocan aan arkayo aan guri harin ee wax walba la iibsaday ee cadaaladeedu sidan tahay taadar wixii aan siyaad barre ku diiday wax ka xun anigu gooni istaagda ku qaadan maayo oo ku taageeri maayo oo aniga la igu oran maayo xabaalaha dadka ku jiriyo lafa kaygu oranayaan hadda waa kii dilayba isaaq ayaan haddan isaaqnimo safka ku soo maraan igu leeyahay marka anigu nimanka waan raacsanahay waana niman aqoon leh waana niman madaxa doodahoodana anigu waan arkayaa halka ay iska seegan yihiin dadka oo waxa weeye dhibanka daarood maskaxday ka taliya nin jecel iyo niman jecelaynba
isaaquna qalbiguu ka taliya marka caadifyad weeye ta qalbigu ninka maskaxda ka taliyaa kolba jar buu dhigayaa isaguyo waa sax kolka cali khaliifa la yaabinte waatayaan cali maxamed yuusuf waxaa jirta isbeddelo kala duwan oo geeska afrika ka dhacay sanadihii u dambeeyey ilaa waqti xaadirkan isbeddelada geeska ka dhacaya somalilan door intee lagbale ay ku leedahay ama kaalintii ka jirta badmanaysa war halkay doonaysaa kaga jirtee isbeddel geeskan ka dhacaya oo somalilan geobolitical istaraatijigeeda indhaha iska tira isbeddel ma noqonayo somalilan geeska afrika waxay kaga taallaa baabalmadab albaabkiisay ku taallaa gobolkan iyo mandaqadda isku soo jeedda ee ilaa carabta aba ahmiyad weyn oo aan ahayn tan waddaniga ah ee riijanka iyo mandaqadda iyo global abay leedahay haddii lagu xisaabtami waayo waa wax shaqaynaya maaha siyaasadda arrimaha dibadda somalilan inta badan asxaabta siyaasadda mucaaridkaa iyo bulshaduba aad baad u dhalishaa xilligan ma la qabtaad u taa haa dhaliilo badan baa jira siyaasadda arrimaha dibadda ad aragtaa maxay dee waxa weeye kaalintii aynu ku lahayn international communitiga iyo sidii aynu qadiyadaheenna u iibin lahayn iyo sidii aynu iskaashi caalami aad wax uga heli lahayn wax laynala soo doonto khatarku inoo keeno un mooye waxaynu innagu dadaalkeenna ku keensannaa ma jiro maxay tahay markaa taladaada siyaasadda arrimaha dibadda somalilan dee waa taa ay kuu sheegay axmed ismaaciil brofesor axmed ismaaciil letus be aggressive waa inaynu noqonnaa oo aynaan muqdisho ka doonin wadahadalka muqdisho waa inaynaan ictiraaf ka doonan waa inaynu waddo kale u marnaa oo aynu qadiyaddeenna international communitiga kaga dhaadhicin karayno waxaanan rumaysanahay anugu waxaa ka dhow oo ugu dhow in la yidhaha siyaasadda khaarijigu ay noqoto ma aha aanu soomaaliya wada hadallo ha laga qaado aqoonsi ha laga qaado afti shacbiga somalilan xaq buu leeyahay madaxweyne codun buu leeyahay ka muqdisho joogay u dhashay muxuu ka yaree ra'iisul wasaare ku-xigeenkiina cod buu isna leeyahay every one of us cod buu leeyahay weliba beersantka intay goorigoor tahay haddaynaan qabannin aftidana beersantku waxaad mooddaa inuu isa soo weydaaranayaba oo anugu garan maayo maanta midnimo iyo gooniisutaa kaanu codaynayo waayo aniga waxaan ku go'aan qaadanayaa waxa dadkayga u dana ya dalkayga iyo dadkaa anugu aan ahay wixii u dan ah ayuunbaa i xukuma caadifiyad iyo gooniisutaag iyo isaaqnimo iyo hebel iyo anigu daaroodna maan necbayn siyaad barrana maan necbayne waxaan necbaa nidaam iyo cadaalad darro iyo kelitalisnimo ayaan diiday dee tii lafteedii oo ka sii xumi markay somalilan ka dhacdo miyaan iska taageeraya ayad u qabtaa no ma taageeraya markaas waxaan leeyahay federaalkaasaa u dhaama marka anigu ninka weliba snmi ninka snmi soo inuu aad uga duwanaado maaha wuxuu isticmaalayaa wixii siyaad barre isticmaali jiray dowladdii horena annagaana loo tirinayo snma tanna annagaa lanoo tirinayaayo snma waxa dalka ka dhacayna waa ogtihi dee markaa miyaan isku snm ba adeernay ninka waxaa ogol anigu waxaan leeyahay qaaxaannu wada joognay dee macnayma samaynayso waa inuu ka fogaadaa wixii aan ku diidey ee aan qoriga u qaatay ee aan kula dagaalamay siyaad barre hadduu koofiyad casbadan ii soo samaystoo shicibkay ku durduriyo ma sacabkaan ugu garaacaya markaa waxyaabahaasaa ku muuqda miyaad sheegaysa waxaasoo dhan way muuqdaan waxaasoo dhan way muuqdaan